Sideed xirfado jilicsan oo xoog badan si aad u guulaysato. Awoodda xirfadaha jilicsan. Dunida maanta ee xawliga ku socota, aqoonta farsamada kaliya kuma filna in lagu guulaysto. Xirfadaha jilicsan sida isgaadhsiinta, la qabsiga, sirdoonka shucuureed iyo wada shaqayn kooxeed ayaa door muhiim ah ka ciyaara dhisidda ilaaqaadka, xalinta mashaakilaadka iyo hagidda caqabadaha goobta shaqada. Waxay kaa caawinayaan inaad si wax ku ool ah u wada shaqayso, u maarayso walbahaarka, oo aad ku hogaamiso si naxariis leh. Haddii aad soo bandhigto fikrado, xalinayso isku dhacyada, ama aad si fudud uga shaqaynayso koox, xirfado jilicsan oo xoog leh ayaa kaa saari kara oo kor u qaadi kara kobaca shaqadaada. Loo shaqeeyayaashu waxay sii kordhaysa u qiimeeyaan xirfadlayaasha aan kaliya aqoon shaqadooda laakiin sidoo kale la xiriiri kara dadka oo si fiican u xakamayn kara cadaadiska. Marka la soo koobo, xirfadaha jilicsan ayaa ah asaaska dhabta ah ee guusha xirfadeed ee waarta. Xirfadaha isgaarsiinta. Xidhiidhka wax ku oolka ahi maaha kaliya in la hadlo ee waa dhegaysi, faham iyo uga jawaabid si cad. Xiriiriyayaasha xoogga leh waxay u sheegi karaan fikradaha si kalsooni leh, iyagoo sidoo kale ka dhigaya kuwa kale inay dareemaan in la maqlay. Xirfadani waa lagama maarmaan dhinac kasta oo nolosha ah, laga bilaabo hogaaminta koox ilaa xalinta khilaafaadka shakhsi ahaaneed. Haddii ay tahay kulan, qoraal, ama wada sheekaysi guriga dhexdiisa ah, sidaad ula xidhiidhi lahayd waxay inta badan qeexdaa sida lagu arko. Isgaadhsiinta wanaagsan waxay dhistaa kalsoonida, waxay yaraynaysaa isfahan waaga, waxayna kaa caawinaysaa inaad si fudud uga gudubto xaaladaha adag. Sirdoonka shucuurta. Caqliga shucuurta ama odhaahda shucuurta waa awoodaada aad ku aqoonsato, fahanto, oo aad maamusho shucuurtaada iyo kuwa kaleba. Sare waxa ay caawisaa akhrinta khaladaadka bulsheed, dejinta xaaladaha kacsan, iyo ka jawaabista si naxariis leh. Xirfadani waxay lagama maarmaan u tahay hogaaminta, wada shaqaynta iyo xidhiidhada macno leh. Dadka leh garaadka shucuureed ee xooggan ayaa aad u adkaysi badan, la qabsan kara, oo si fiican u maaraynaya walaaca. Waa mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee koritaanka xirfadeed iyo qanacsanaanta shakhsi ahaaneed labadaba. La qabsiga xaaladaha. Isbeddelku waa lama huraan, idii isku duubta intay iska caabin lahaydna waxay u badan tahay inay guulaysato. La qabsiga macnaheedu waa u furnaan fikrado cusub, diyaar u ah inuu wax barto oo awood u yeesho inuu la qabsado hadba xaaladda marka loo baahdo. Xilliga cusub ee cusboonaysiinta iyo cusboonaysiinta joogtada ah, la qabsiga waxay kugu ilaalinaysaa isbeddellada, taariikhda iyo ku habboonaanta. Shakhsi ahaan, waxay kaa caawinaysaa inaad salka ku hayso inta lagu jiro dhacdooyinka nolosha lama filaanka ah oo muujinaysa adkaysi halkii aad ka argagaxi lahayd. Ma aha oo kaliya badbaadada, ee waxay ku saabsan tahay koritaanka isbeddelka. Wada shaqaynta kooxdu waxay ka dhigtaa riyadu inay shaqayso. Haddii aad ku jirto kooxda mashruuca ama qoyska dhexdiisa, ogaanshaha sida loo wada shaqeeyo waa muhiim. Shaqa kooxeedku waxay u baahan tahay inay noqoto mid dareen leh, ka qayb qaadasho firfircoon, iyo awoodda wax u dhimitaan marka loo baahdo. Inaad noqoto ciyaaryahan weyn waxay la macno tahay in dadka kale kor loo qaado, la wadaago ammaanta, iyo in yoolalka wadajirka ah laga sare mariyo ego. Waa xirfad shaqo bixiyayaashu si qoto dheer u qiimeeyaan, waana mid xoojinaysa xidhiidhka iyo saaxiibtinimada. Baro inaad noqoto mid xaliya mashaakilaadka marka irku awlan yahay. Qof kastaa wuxuu la kulmaa dhibaatooyin, laakiin qof kastaa si fiican uma maareeyo. Xalinta mashaakilku waa awoodda lagu qiimeeyo xaalad, si qoto dheer looga fikiro, oo loo helo xalal la shaqayn karo. Ma aha oo kaliya injineerada ama falanqeeyayaasha, laakiin qof kastaa wuxuu ka faa'iidaysanayaa inuu noqdo mid ku jihaysan halka. Waxay dhimaysaa walbahaarka, waxay dhistaa kalsoonida, waxayna tusinaysaa in qofku diyaar u yahay inuu dadaalkiisa bixiyo. Nolol maalmeedka, haddii aad qorshaynayso safar ama aad dhexdhexaadinayso khilaaf, awood u yeelashada in aad xalliso si wax ku ool ah ayaa kuu kala saarta oo waxay abuurtaa kalsoonida asxaabta. Maaraynta wakhtiga. Wakhtigu waa khayraad aan la cusboonaysiin karin. In si xikmad leh loo maareeyo waa xirfad bixisa faa'iidada nolosha oo dhan. Maaraynta wakhtiga wanaagsan macnaheedu waa kala hormarinta hawlaha, dejinta yoolalka la gaari karo, iyo ka fogaanshaha dib u dhigista. Waxay kordhisaa wax soo saarka, yaraynaysaa walbahaarka, waxayna ka tagtaa meel loogu talagalay korriinka shakhsi ahaaneed iyo nasashada. Laga soo bilaabo la kulanka wakhtiyada kama dambaysta ah ilaa samaynta boos loogu talagalay hiwaayadaha, maaraynta wakhtigaaga si hufan waxay abuurtaa dheelitirnaan, waxayna kaa caawinaysaa inaad diirada saarto waxa dhabta ah ee muhiimka ah. Ogow inaad khilaafto laakiin si deggan. Khilaafku waa qayb nolosha ka mid ah, laakiin sidaad u xalliso waxay qeexaysaa qaangaadhnimadaada.
Xallinta isku dhacu waxa ay ku saabsan tahay in si firfircoon loo dhegaysto, in la dareensiiyo aragtiyo kala duwan, iyo in la helo mowqif midaysan. Waxay u baahan tahay deganaan, diblomaasiyad iyo dulqaad. Kuwa ku xeel dheer xallinta khilaafaadka inta badan waa nabad-samayaasha lagu qiimeeyo goobaha shaqada iyo xiriirka labadaba. Yaraynta xiisada iyo fahamka kordhinta waxay gacan ka geysataa ilaalinta nabadda iyo xoojinta curaarta halkii ay guban lahayd buundooyinka. Ku joogista dhiirigelinta. Kartida inaad diirada saarto, suulasha iyo togan xitaa iyada oo aan lahayn abaalmarin dibadeed waa wax beddele ciyaarta. Shakhsiyaadka isdhiirigeliya waxay dejiyaan yoolalkooda waxayna si joogto ah ugu shaqeeyaan iyaga. Ma sugaan ogolaansho ama riixin, halkii waxay abuuraan dardar iyaga u gaar ah. Xirfaddani waxay si dhow ugu xidhan tahay edeb iyo xamaasad, waxayna kor u qaadaa guusha mustaqbalka fogdhaaf haddii aad wax u baranayso imtixaano ama aad dhisayso ganacsi. Waa dariiqa gudeed ee kugu ilaalinaya marka arrimuhu adkaadaan.